kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu horreyn asxaabtayda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ay ugu xiran tihiin dadka igu cusub iyo dadka hore ila jooga dhammaantiin oo idin mahad celinaya kama daalina idin mahad celiyo. maanta waxaan sameysanaynaa xalwada ciida. inta waxaan ku haystaa koob oo caleen aan soo karkariyay, koob biyo ah iyo qaandada yar oo caleen ah soo karkariyay. qaandada cunto lagu cuno ma ahan, mid ka sii yar waaye. qaandada cunto lagu cuno hadii aad ku dartid way madoowaanaysaa caleenta. marka qaandada ka sii yar aan soo karkariyay, koob biyo iyo qaandada yar oo caleen ah soo karkariyay. inta waxaan ku haystaa koob cornflour ah ama warangada xalwada lagu kariyo waaye, kan waaye cornflour-ga. inta waxaan ku haystaa juice iyo heel waa soo shiidi doonaa hadhow kan gadaalka isticmaali doonaa. inta waxaan ku haystaa looskana gadaal ka isticmaali doonaa. hadda intaan isku dardaraynaa, intaan hadda isku dardaraynaa. inta caleenta waxaan kusoo shubayaa koobkii oo warangada ahaa. xalwada aan karinayo waa kiilo. dabka aad doonaa waa idin tusi doonaa dabka noo saaran. horta intaana qasanaynaa. xaggaas dabka aadaynaa asxaabtayda dabka waxaa noo saaran 4 galaas oo biyo ah, 3 galaas oo biyo iyo 4 galaas oo sokor ah. galaaska afaraad waxaan kusoo kariyay caleentaan kusoo karkariyay. caleenta iyo warangadii hadda kusoo daraynaa sokorta iyo biyaha dabka noo saarnay. hadda markay soo kareen waxaan ku daraynaa caleenta iyo warangada aan isku soo qasnay. waa 4 koob sokor ah iyo 4 koob oo biyo ah, laakiin 3 koob sokorta kusoo saaray. koobka kalena waxaan kusoo qasay biyaha, koobka kale waxaan kusoo kariyay caleenta. inay fahanteen aan rajaynayaa. 4 koob biyo iyo 4 galaas biyo iyo 4 galaas oo sokor ah waaye. xalwada aan karinayo waa kiilo. marka inta noo soo karaa xoogaa markay noo soo karto aan isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa kana xalwadii dabkaan soo saaranay. marka soo adkaanaysaa soo ma aragtaan. warangada haddii ay halaysan tahay markaa ku shubtid koray soo aadaysaa ay soo buraysaa sida caano bureen oo kale. hadda markaas hadda warangada ay fiican tahay marka ka dambayso way sii adkaanaysaa. hadda way adkaanaysaa soo ma aragtaan. marka hadda waxaan ku bilaabayaa saliida. inta waxaan ku haystaa koob saliid ah. ani saliida ku karsanaya xalwada. saliida bedelkeeda subaga ku karsan kartaa. koobka shaaha lagu cabo oo saliid ah inta ku haystaa soo ma aragtaan. marka saliida ku soo darsanaya kiskasa saliid ugu darsanaya. xoogaa markay intaan ku soo karto haddana waan ku darayaa. saliida bedelkeeda subaga ku karsan kartaa, laakiin anaga gurigeena subaga lagama jeclo. marka waa ka dhaafayaa, waa ka daynayaa subaga. saliida ku karinayaa. laakiin xalwa subag hadii aad rabtid subag waa ku karsan kartaa. bedelka aan koob saliid ku karinayo koob subaga ku karsanaysaa. inaa fahanteen aan rajaynayaa. kalarka aan u baahanayo weli may noqonin. wax yar oo food color ku soo darayaa. food color waa kaas waxa siriiska ku soo daray. intaas yartaan ku soo daray wax yar oo been waaye. kalar waxaan rabaa oo gaduud zaa'idna ahayn inay igu soo baxdo. gaduud zaa'idna ahayn cadaan ahayn. gaduud oo light inay kusoo baxdaa rabaa. gaduud light inay noqoto ma rabi. marka intaas la kusoo darsaday. food color-ga aan ku darayna waa midka oranjiga oo cuntada lagu karo oo bariiska lagu daro. midka oranjiga waaye.
xalwada inta dabka saarto ma ka tagaysid waa inaad la joogtaa aa walaaqdaa aa qastaa xalwada shaqadeeda dhan waa qasid walaaqitaan waa fahanteen marka walaaqaya waa la joogayaa burjukada ku karinaya soo ma aragtaa dhuxusha ku karinaya kuukarka waxaa nacaya taagnaashaha badan waana soomanahay xalwadana dab badan yani waqti badan ay karsameyso maahan marka intaas oo dhan ma taagnaan kari dhuxusha ku karinaya gambara soo qaatay dhulka u fadhiya ma garatay maanta oo dhan waa iska ag fadhiyaa waa iska walaaqaya marka ka faa'iidayso insha Allah marka halo soo karto hadana wax yar kadib waa isku soo laabanayna asxaabteyda ay karaysaa way noo karaysaa waa aragtaan soo taqtaqayso baashan dadku way gubtaa iska ilaaliya tiq ay soo leedahay way soo budbooday inay ku gubtaa qatar marka iska jira insha Allah saliidda ku soo daraya hadana koobka saliidda ahay xaafan ku darmay xaafan ku daray soo maahan xaafka kala hadana aan ku darayaa baashan saliidda waa lagu kariyaa hadhow markay bislaato ayada iska soo tufayso saliiddan way iska soo celinaysaa ayada iska soo celinayso markay bislaato laakiin inaad saliid fiican ku karisid waaye haddaa saliid ku yaraysid ay kaa halaabaysaa waxaan dhan hadhow saliidda hadda soo maaragtaan hadhow korkay ka galaysaa way dhex galaysaa ayada dhan saliidda ayada way isdhex galayaan way ku baaba'aysaa laakiin markay bislaato saliidda way soo celinay waxaan saliid dhan waa laga miirayaa hadhowdi insha Allah hanoo soo karto waxyar kadib aan isku soo laabanaynaa hadana asxaabteyda weli bahasha dabkay saarantaa soo ma aragtaa saliidda saddex maraan kusoo daray marka ugu dambeyso hadda koobka saliidda weli waa ku wada darayaa markaan marka baashan saliid fiican inaad ku karisid waaye saliidda hadaa ku yaraysid way kaa halaabaysaa ani hadda kiilada oo xalwada waxaan ku kariyay hal koob oo saliid ah koob saliid iyo koob waranga ku kariyay warangada qaanda ku cabir hadaa idin dhaw ku wareeraysiin koobka wax ku fahmaysiin mar koobka idin fiican koobka idin ku fahansiinaya kiilada hal koob aan ku kariyay oo waranga ah ama cornflour af Soomaali waranga way Soomaali warangada xalwada lagu kariyo marka hal koob oo waranga iyo hal koob saliid ah iyo 4 galaas oo sokor ah iyo 4 galaas oo biyo ah waaye haddii aan nus kiilo karsanaysid koob haafkiis oo waranga iyo waxa ka dhiganaysaa iyo 2 galaas sokor ah iyo koob haafkiis oo saliid ah haddii aad ka badan samaysanaysid 2 kiilo aad samaysanaysid iyo kasii badan inta kiilada hadda aan ku kariyay hadda 4 koob aan ku kariyo Soomaali 4 koob 8 koob ka dhiganay haddii aad karsanaysid 2 kiilo oo xalwo ah 8 kiilo oo sokor ku karinaysaa iyo 8 kiilo marka wada 8 galaas oo sokor ah iyo waxaan ka wadaa 8 galaas oo biyo ah 2 kiilo xalwo marka karinaysid iyo 2 koob oo waranga ah inay fahanteen rajaynayaa marka saan la soo qasaya waa la joogayaa wax yar kadib hadana waa isku soo laabanayna insha Allah asxaabteyda weli way karaysaa xalwadii waxaan ku soo darayaa carfiski heelka iyo jooski aan isku soo shiiday waxaan ku qasaya carfiski waaye xalwada iyo maxaa la dhahaa heelka iyo jooska waaye hadaa idin tusaaye waan soo shiiday hadda waan ku soo daray loo soo karto weli dabkay saarantahay koob ma joogto waa isku soo laabanaynaa markay diyaar soo noqoto qaaca waa kaamirada si fiican mu arkaysaan marka waa isku soo laabanaynaa insha Allah asxaabteyda baasha weli dabkay saarantahay
عبارة كلام مقنين انت سوي كريس وانو عك فديه وولاقاي وقساي مرنا كما تاجين ولا جوغي marka hadda diyaar waaye soo ma aragtaan markay bislaato waxa ku ogaan kartaa waxa ku garan kartaa saliidda iyadoo ay kala harayaan hadda soo ma aragtaan saliidda haday marka ku shuw way ku dhaxlumaysay haddana ayada soo gelino saliidda iyadoo ay kala harayaan soo ma aragtaan haday waxay ahayd wax oo digsiga la siman oo saama noqonaynin yani saas ma noqonaynin haddana waa aragtaa saliidda iyada saas ay kala harayaan xoogaa loos ahaa soo darsanaya xalwa loos waaye loos bedelkiisa sina ku darsan kartaa ana hadda sisin ma haysti sisin diyaar ma ahan looska haysta looska ku darsanaya loos hadii ay haysanin sisina ku darsan kartaa ama loos ama sisin wixii markaas aad jeceshahay ku darsan insha Allah waan ka qaadayaa dibka hadda waxa qaadaya saxan ku soo gadina saliida ka miiraya saliid marka ka miiraya waa idin tusaya insha Allah asxaabtay saxankan ku soo gadiyay hadda waxa sameynaya marka saliidan ka miiraya bismillah kumanka waxa u saaray istraashadan saxanka kuleel waaye Soomaali miis waaye waxaan plastic waaye marka shukumaan kuleelkan ka xijinaaye saliidan ka miiraya soo ma aragtaan waxaas saliida iska soo celisay saliida ayada iska soo celinayso halkaas saliida iska soo celisay markaan looskana soo saaranaya insha Allah isku soo laabanayna asxaabtayda waatan xalwadii way kulushahay looma dhawaan karo ma fahanteen hadda waxa rajaynayaa inaad ka faa'iideen aad ay fahanteen sida oo kariyay ka faa'iideysto walaalahayga qaaliga ah channelka taa ku cusubtahay ku soo dhawow subscribe saar bell on ka dhigo si markasto video kasto aan soo dhigo aad u hesho إن شاء الله فيديو لايك صار شير قراء أصحابتها لو بدك إن شاء الله كفاية استهدال عليك قالية وصومنا هاي وحبدا مهد لكريم مركا صانا وكد هالي حلو كريو هالكيل اللي أنا كريو واد هالي باشان ولا قد إذا هول إهبو كعنت لنا حلونا يسو وقصة يسيد مركا قف إنا جهزت في عنتا أو يعني وصومنين أو انتظعنا بيا عبايو إنا جهزته ay ku fiican tahay karinteeda laakiin dib ma lahan ana Soomaali idin soo sameeyay ka faa'iideysta si idinka aamusino isdhin nahayn xalwada ciid ma soo gelinay maxaa dhacay si isku weydiinin marka ka faa'iideysto walaalahayga qaaliga ka faa'iideysto insha Allah assalamu alaykum